dhalinyarada gobolka mudug waxay maanta qaaday tallaabo taariikhi ah oo ay wax uga qabanayaan si iskaa wax u qabsaa arrimaha horumarka. boqolaal dhalinyaro oo ay dhex boodayaan maamulka gobolka, isimada iyo waxgaradka qaar ka mid ah ayaa waxa ay maanta olol nadaafadeed ka bilaabeen garoonka ciyaaraha ee Gaalkacyo, waana hawl ay ku horumarinayaan arrimaha horumarka ee gobolka mudug. ka socda olol ballaaran dhalinyaradu uma kala harin, maamulkii ayaa jooga, sidoo kale nabadoonadii, isimadii, uqaashi, waxgarad maanta Gaalkacyo uma kala harin. waa ololihii ugu horeeyay oo laga bilaabay tan iyo intii uu bilowday kacdoonka ay ka tirsan gobolka mudug, waxaana la filayaa in lagu intiyo ololayaal kala duwan. dhammaan dhalinyarada gobolka, maamulkii degmada gobolka iyo isimadiiba goobjoog ayay meesha ka yihiin. haddaba mudug waa ay tashay. waxaa hubaal ah in isxilqaanka ay dhalinyaradu ku jidho dhiiranaanta ku jirta ee ay ku doonayaan inay isbedel ku sameeyaan ay ka dhabeeyaan inay horumar gaarsiin karaan gobolka iyo dalka guud ahaan iyo dadkoodaba. aad baan ugu faraxsanahay hawsha ka jidho isbartiinka Gaalkacyood. qolka soo aragtaa hawshan soconaysa. aad baan ugu faraxsanahay maadaama dhalinyarada gobolka mudug ay maaragtay isku taageen in mataqaana danooda ay qabsadaan, khaasatan isbartiimadii oo ah meel dadweynaha ka dhaxayso inaan u wada shaqeyno. aad baan ugu faraxsanahay. waa ujeedaa askartii waa ka shaqeynayso, waa ujeedaa madaxda gobolka u shaqeynayso, waa ujeedaa waxa ka wada shaqeynayso dhalinyarada daayarta ee soo wada kacaysay. aad baan ugu faraxsanahay aan ku oran karaa saaxiib. aan faraxsanahay inaad dalkayga wax u qabto meesha koowaadna ka bilaabay ee ah isbartiimada dadka kale saas iyo rajeynaya haweenka iyo islaamaha iyo dadkii oo dhan yar iyo weyn iyo madax iyo midna haddaanan gacanta ku qaban, haddaanan gurin ayaa ii guraya. wallaahi waan ku faraxsanahay, waxaan rabaa inaan dalkayga dadkayga anfaco. haddaan ahay Bishaare Maxamed waa dhalinyarada ku nool gobolka maxamed soo aragtaa hawshan awdi. hawshan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waa arrin istifaalo khayr oo muujinaysa isbedelka gobolka mudug ka socota, dhalinyaradiisii iyo maamulkiisii iyo mas'uuliyiintiisii oo isugu tagay inay iskaa wax u qabso ku nadiifiyaan garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo Stadium. dhammaanteen waxaynu aragnaa shaqada ka soconaysa halkan. waxaan jeclaan lahaa inaynu wada daawano gabadhan waxa ay ku qaadaysaa dhagaxuntii indhasheerka ay wadatay iyo qayb maradii dharka ay wadatay ka mid ah. waa hawl aad u wanaagsan, waa tallaabo ku dayasho mud. maxamed cabdiqaadir cali waa hindisihii ama ninkii ku riyooday oo ku hamiyey shaqadan maanta ka socota garoonka ciyaaraha ee Gaalkacyo. waa ninkii soo abaabulay maamulka iyo dhalinyarada iyo dhammaantiin dhiiggeena kiciyey, na dareensiiyey qiimaha ay leedahay inaan iskaa wax u qabsano, iskuna keenay dhammaan dadka halkan joogay. maxamed sidee u aragtaa hawshii aad ku riyoonaysa oo ku hirgashay? runtii hawshan haddaan aan helin macnaha garbahan aan ku duuleyno oo ah dhalinyaro aad u diyaarsan u horeeya dadkooda inay wax u qabtaan. hawshan in muddo waa iga dhexbuuxisay. aad baan ugu faraxsanahay. dhammaantiin inta ka shaqeynaysa mas'uuliyiintana waxaan leeyahay aad u wada mahadsan yihiin. insha Allah magaaladan bil ama 2 bil kadib waxaan arkaynaa mid lagu reesto inay noqoto magaalooyinka ugu horumara Puntland iyo Soomaaliya inay noqoto insha Allah.
بحني ابو مغدا إنان اسمه فلان لا أكون سيء اللهم غاني لا أغايا إنان اسمه فلان لا أكون سيء اللهم غاني لا أغايا la yaab ma leh in haddii qof aan goobjoog ka ahayn looga waramo qaabka ay wax uga soconayaan gobolka mudug oo u qaadan waayo ama ay ka dhaadhici weydo waxaase halkaasi ka muuqda in isbedel ballaaran ay gobolka mudug cagta saartay maxamuud cabdiraxmaan cuuke oo ah gudoomiyaha guddiga horumarka iyo nabadgelyada ee gobolka mudug oo maanta dhex boodaya dhalinyaradii shaqaynaysay ayaa waxa uu baaq u diray jaaliyadda sidoo kalena u mahad celiyey dhalinyarada gobolka mudug طبعا ما أنا أبابول المشروع بها أبابول النيرة قال كعيو وأنا رنتي أرين أبي ونكسن وبلو حفظها قال كعيو عندما أنا وذا كلام بيكوشين النيرة قال كعيو بلع المجال ذي محلقة قبته هذا وأرين بلو وحد أركس شعب قال كعيو قبل مرت النيرة ذي هو ينكيو واردين تلمان إنه كويشين هرمرك مجال ذا marka runtii arin aad lagu farxo weey wana wadana ilaahay insha Allah jaaliyada maxaad ugu baaqaysaa iyo dadweynaha ku dhigta jaaliyada waxaan ugu baaqayaa markii hore midnimo inay maarta dhankooda ay ka sameeyaan oo ay noqdaan dad midaysan aysan noqon dad midaysan Puntland wax ma qaban karaan marka markii hore fariinta ay diray waxa weeye hadaatiin dadka qurbo joogta ah dad midaysan noqda dad isku xiran noqda wadankana insha Allah wax tara wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كل ما الموت وصوتنا سن مالك استوى شغين إنسان قشي كان يدي كور مريم كما قبل قيمة إلى مالها درك الله قادنا يحرق ذا يشادين كلوتا قيمة معها هداني ودكو خدمينين هداني نبتقلين كشغينين هداني قشي كسك قادين هداني وضويك هكاك سنين هداني درت بيرين هداني governance رول فلوغي دولة نمنا ينا سميسين چند چيغا يا اسبدلك قاعدين يكو سمية إنا فريسة ملع الله وبيبتك شاكيسته وفريق ديرته وميلا فيلم كداوته وحبايدي ما تريسه تاريخ دنيا ما قريسه لكن نيك شقيه ومالك لي ودك شقيه تاريخ لا قريسه امام الله هنا امانه كدع مسؤول كدع لي waxaan halka idin kale nin waliba dhul buu leeyahay qaran u doorsoon dhaxashiisa wiilkii dhacsada waa ku dheefay dayal maaha ciiduna ninkii dhiiran baa garan dib waxaana loo marin fudayd kuma dalaalaan dhaqaalaha dalkaaga ay ammaanku ugu dhalatay dhiirigelinta waxa lagu helaa nabadda doorsoon dhiirigelinta waxa lagu helaa nabadda doorsoon kuna qaaqa beeraha dadkii oo waxa soo saar badaheena waa weyn nimcada buuxda noo baara buuraha ku daahsan dalkana shibad ka soo beega balanteedu waa shaqo iyo ammaan runtii mudug waxaa ka bilowday masiiro isbedel ah iyo tallaabooyin horumar leh waxaase aan shaki ku jirin waxqabad kasta inuu u baahan yahay adkaysi in la daa'imo iyo in loo dhabar adeego caqabadaha ka imaanaya dadka horumarka diidan mahad jaamac gaalkacyo